السلام عليكم أصحابتنا قيمة قاية له ميل وجوكتان أردنا الصوماليات قعدتي ذو حكسر دعدي بانتا إنجليش فورم 2 كسر دعدي بيج كطوان إيو أفراد reading comprehension بيج كاس إيد day gifts وكاد لايا هديتها معلمها عيد أيو كاد لايا إن شاء الله عشر كسان بل دول مر أيا كسبين أيا وأنت صوحنا تكفايدت Eid day gifts what's the best Eid day gifts maxay tahay maalinta ugu wanaagsan what is maxay tahay the best Eid day gifts hadiyadaha ugu fiican maalmaha ciida okay Eid ama Eid is an Islamic festival waa dabaaldeg islaami ah ordained by oo uu amray Allah and taught una baray by his messenger una baray rasuulkiisa in Islamic teaching dinta islaamka una ugu baray Eid is celebrated Eid wala dabaaldegaa by all Muslims worldwide dhammaan dunida meel walba ay joogaan way dabaaldegaan there are two Eid festivals waxaa jira laba dabaaldeg oo Eid ah that are celebrated kuwaas oo la dabaaldego by muslimiinta every year sanad kasta these are waxay yihiin kuwaasi Eidul Adha and Eidul Fitr waa taqaaniin si fiican Eidul Adha is known as festival of the sacrifice Eidul Adha waxaa loo yaqaanaa dabaaldega nafhurnimada udhiyada ayaa laga wadaa It's a very important festival waa dabaaldeg muhiim ah which marks kaas oo calaamadeynayso the end of Hajj dhamaadka Hajjka oo in maalmihii Hajjka ay dhamaadeen cadeynayso one of the pillars of Islam Hajjka oo aan ognahay mid ka mid ah tiirarka Islaamka inuu yahay beeshka 15aad Muslims slaughter muslimiintu waxay gowracaan animals xayawaanka day maalintaas ay gowracaan as a symbol waan calaamad of the sacrifice ee udhiya ama nafurnimo and prophet uu sameeyey Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalaam made to Allah amray Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalaam to act as inuu sameeyo sidaas udhiyada uu sameeyo to act of obedience si ay u noqoto in uu baari u noqdo to his command amarada Allah si uu baari ugu noqdo nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam it is the second of two Islamic festivals waa mid dabaaldega islaamka midkiisa labaad it is the second waa mid labaad of two Islamic festivals waxaan qabnaa laba dabaaldeg oo muslimka oo leeyahay that Muslims worldwide taasoo muslimiinta adduun weynuhu celebrate ay dabaaldegaan yearly sanadkiiba and it's considered waxaa loo tixgeliyaa holier than inay ka maaragtay baraka badan tahay than Eidul Fitri Eidul Fitr is the first Muslim festival Eidul Fitr maxaa waaye waa dabaaldega ama ciida ugu horeysa ee muslimiinta celebrated oo ay dabaaldegaan this auspicious occasion fursadan muhiimka max waxay calaamad u tahay calaamadeynaysaa the end of holy month of Ramadan dhamaadka bisha Ramadan ee barakaysan ee dhamaatay ayay muujinaysaa it marks waxaa kaloo muujinaysaa the moment xaalad waqti when Muslims of all walk of life is muslimiinta shaqooyinka kala duwan qabto oo worldwide ee dunida oo dhan send ay isku diraan their heartfelt gratitude mahadnaqooda ama mahad celintooda qalbiga ka soo go'day
and well wishes iyo rajada wanaagsan to their loved ones dadka ay jecel yihiin ay u dirayaan their relatives qaraabadooda and neighbors iyo deriskaba. They send gifts waxay isku diraan hadiyado as a token oo hadiyad la taaban karo to their most dear friends saaxiibadooda qaaliga ah and families iyo qoysaskooda as a sign of love waxay muujinaysaa calaamad jacayl and kindness iyo naxariisa. Okay, what are the best gifts maxay tahay hadiyada ugu wanaagsan to offer ee la isa siiyo these people dadkaasi la siiyo most dear to you. What are the best gifts to offer maxay tahay hadiyada ugu wanaagsan oo siin lahayd those people most dear to you dadka agtaada qaaliga ku ah. Eid day maalinta ciida. Okay, Eid day celebration dabaaldega maalinta ciida is a festival waa ciid ama dabaaldeg which is quite popular kuwaasoo caan ay ku yihiin inay ciidaan among young children caruurta yaryar in the Muslim society bulshooyinka muslimiinta. This is sababta maxaa waaye this is tani waxay tahay because maxaa yeelay young children caruurta yaryar always expect Eid Mubarak and Eid from their next of kin inay ka helaan qaraabadooda and parents iyo waalidiintooda. Money lacag in cash lacagaa la siin jiray cash aan loo siin jiray by elder members dadka ka waaweyn ayaa siin jireen of the family qoyska so they could buy si ay iyaga usoo iibsadaan gifts hadiyadaha of their choice hadiyada ay jecel yihiin. However si kastaba things have changed waxbaa isbedelay with time and money waqtiga iyo lacagta way isbedeleen. People prefer dadka waxay door bidayaan to hand pick inay ayaga gacanta kusoo qabsadaan and choose ay doortaan gifts for their loved young ones. waalidka marka dadka ayaga usoo dooraya oo gacanta kusoo qabtaan cunugii u keenaya hadiyadii ayaga u jeclaanaya. Okay, many parents waalidiin badan waxay soo iibiyaan and give waxay siiyaan toys waxyaabaha lagu ciyaaro to their children caruurtooda. In this real sense markii aan macnaha guud aan fiirin dhabta ah giving toys in waxyaabo lagu ciyaaro la siiyo to children caruurto is not a bad idea. fikrad xun ma ahan as makes them wuxuu ka dhigayaa jovial way ku farxayaan and very pleased aad ay ugu qancayaan with a little token they receive hadiyada yarta ah ee la taaban karo oo la siiyo. Our choice dooqeena on which particular toy ee nooca lagu ciyaarayo ama nooca maaragtay qalabka ciyaaraha to offer and siinayno to our children caruurteeno is something waa shay and we should do with caution inaan ka taxadirno loo baahan yahay hadiyadaha aan siinayno. We all know waxaan ognahay that children love to receive in caruurta ay jecel yihiin inay helaan gifts hadiyadaha especially gaar ahaan toyska qalabka lagu ciyaaro on this special day maalintan gaarka of their life ee noloshooda. It really sounds pretty bad way xun tahay and absolutely unimaginable waana wax aan la qiyaasi karin for a child not receive inuusan cunugu helin a toy wax lagu ciyaaro as gift hadiyadahan. Frankly speaking si fiican anagu u hadlayno ama si firfircoon hadaa u hadalno ama si saaxiibtinimo hadaa u hadalno is there a child ma jira cunug who does not want a gift cunug aanan hadiyad rabin ma jira in our Somali community mujtamaceena Soomaaliyeed. It's often popular inta badan waa caan to buy inay soo iibsadaan children toy guns caruurta waxay caan ku yihiin inay iibsadaan qoryaha oo qalabka lagu ciyaaro qoryaha ay jecel yihiin. Eid day celebration dabaaldega ciida should be marked with happiness waa in farxad lagu dabaaldegaa unity midnimo peace nabad and harmony iswaafaqsanaan. However si kastaba seeing children waxaa arkaynaa caruur who are well and beautiful dressed kuwaasoo si fiican
oo qurux badan u labisan carrying toy guns oo wata qoryo somehow steals marmarka qaar waxay xadaan happiness farxadda waxay ka xadaan from the people around them dadka ayaga ku hareeraysan oo farxadda ku jiray ay farxad ka qaadaan oo ay ka dhumiyaan this is not good idea ma ahan fikrad wanaagsan we need to rethink waxaan u baahannahay inaan dib u fikirno for an appropriate gift hadiyadda ku habboon every time markasta we want to buy one for our children markasta aan hadiyad caruurteen u soo geedayno mid ku habboon waa inaan ogaanaa some of the currently available toy guns qaar ka mid ah toy gaanada ama qoryaha hadda la helo are very sophisticated aad ayay u casri yihiin and totally resemble waxay si guud ugu eg yihiin a genuine gun qori dhab ah ay u eg yihiin they look exactly xaqiiqdii waxay u eg yihiin the ordinary guns qoryaha caadiga ah that can kill kuwaasoo wax dilo from the deadly pistols waxay og yihiin qaarkood bistooladaha wax dilo AK-47 qoryaha AK-ga aakaha ah oo rivals qoryaha maaragtay aakaha machine guns mishigaanada qoryaha darandooriga u dhaco these gadgets waxyaabahaasi qalabkaasi are not only scary kama cabsi geliyaan kaliya but also create waxay abuuraan disturbance dhibaato and symbolize waxayna calaamad u yihiin muujinayaan violence rabsho there is more harm aad ay dhib u tahay than good associated with marka la waafajiyo with a whole and paraphernalia innaha waxaa waa qalabyadaas yaryar ee lagu ciyaaro dhammaantood in the name of gifts markii la dhaho hadiyad marka waxaa ka fiican waxyaabaha yaryar oo smallka ah ayaa ka fiican waxaa la yidhahdaa paraphernalia kuwa yaryarka oo miscellaneouska waxyaabaha qoryaha kasoo haray yaryarka ayaa ka wanaagsan okay pageka 16 let's give a little thought aan xogaa yar ka yara fikirno bal aan yara fikirno so how let's give a little thought aan xogaa fikrad yar siino how do you feel sidee dareemi lahayd while peacefully walking adigoo si nabadgelyo ku socdo all alone in a slightly dark path jid xoogaha mugdi ah or street wado and suddenly isla markiiba a 10-year old boy wiil 10 jir ah points wuxuu kugu qabtay a toy gun at you qorigaas oo lagu ciyaaro ayuu kugu qabtay maxaa sameyn lahayd scared waa cabsan lahayd right isla markiiba out of extreme fright cabsi xoog leh ayaad cabsan lahayd or fear ama cabsi it my right cabsi ma gariir lahayd it my cause want to faint dadka qaar inayba matagaan suuxaan ay ku dhawaanayaan go into coma ay kooma galaan or even die ayba dhintaanba not every one of us ma ahan qof kasta oo naga mid ah could imagine ma qiyaasi karo of what's being pointed at waxa la tilmaamay it's a toy waa maaragtay qoriga waxyaabaha lagu ciyaaro or a real gun ama qori caadi ah given a typical resemblance of two waxay ogyihiin marka qoryaha ay ogyihiin despite the inconvenience marka laga soo tago ku haboonaansho la'aanta the fear cabsida and the bad image iyo sumcad xumida it portrays uu soo bandhigo ay soo bandhigaan on us annaga as a peace and loving society bulshada nabadda iyo maaragtay isjecel yarab waxaa jira other serious implications of these toy guns qoryahaas lagu ciyaaro we often give to our children on caruurteena siino inta badan first marka koowaad they can harm themselves naftooda ayay waxyeelo u geysanaysaa second marka labaad they can hurt waxyeelaynaysaa dhaawacaysaa other people dadka kale especially the elders gaar ahaan odayaasha dadka duqooshinka ah mothers hooyooyinka and the soft hearted members iyo dadka qalbiga jilicsan of the community like women ee mujtamaca sida dumarka oo kale the irritating sound dhawaqa xun made by uu sameeyo ay sameeyaan these toys qalabkaas lagu ciyaaro qoryaha are totally in menace waa khatar
and more so chaotic aad ay qas u yihiin in nature nooc ahaan. So why do we want to change? maxaan u doonaynaa inaan bedelno the happiness farxadda that should be marked with the auspicious happy, taas oo ku calaamadaysan farxadda muhiimka ah questions fursadaha into one that's full of sorrow. maxaa u dhigaynaa murugo or case qas maxaa ugu bedelanaa just in the name of pleasing, si hadda magaca qancinta si aan u qancino our loved ones dadka aan jecelnahay. Everyone is bound to be happy, qof walba wuxuu jeclaan lahaa inuu farxo and make dear ones happy, dadka qaaliga u ahna inay baarid farxaan as well sidoo kale. But it's always wise, waxaa xigmad ku jirtaa to strike a balance inaan isku dheelitirno between achieving these objectives gaaritaanka daaftaas oo farxadda ah by being moderate, inaan dhexdhexaad ka dhigno practicing aan ku practice garayno sense of distance, sharaf, dareen sharafa and direction iyo jiho. A good, responsible and considerable Muslim parent, waalidka wanaagsan ee mas-uuliyadda qaado ee muslimka ah or guardian ama qofka waalidka uu ardayga maaragtay la ilaaliyo should give clear instruction, waa inay siiyaan tilmaamo cad, guideline iyo tusaalooyin on what particular toys to purchase, nooca waxyaabaha lagu ciyaaro ay soo iibsanayaan when they give cash money, markay lacag cash siinayaan your children caruurtooda. Okay, sorry, instruction toys to purchase when they give cash money, markay siinayaan lacag cash to children caruurta to buy toys si ay usoo iibsadaan waxyaabaha lagu ciyaaro of their choice doqooda. If you as a parent, haddii adiga waalidka ahi must buy toys for your children, ay waajib kugu tahay inaad caruurta usoo gadayso toys, them there are arrays of whimsical toys, waxaa jira waxyaabo badan oo yaryar oo lagu ciyaaro in various colors, whimsical waxyaabo yaryar oo midabo kala leh like sida dolls, waxyaabahan oo loo labiso oo maaragtay qofka bini'aadamka kale laga dhigo, inkastoo aanan that support garanaynin oo aysan fiicneen waxaas. Dressed in oo loo labiso in ciid costume, dhaqanka ciida lagu labisayaa or attire ama qalabka ciida. Educational materials, waxyaabaha waxbarashada ku saabsan among others, waxyaabo badan oo waxa u keeni kartaa oo waxbarashada ku saabsan. Though this way, maadaama inkastoo qaabkani our children would learn to appreciate, caruurteena waxay inta badan jecel yihiin the customs and traditions, waxyaabaha dhaqamada associated with Eid celebration, waxyaabaha dhaqanka ee ku dahaaran ku wareegsan dabaaldega ciida. intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa page-ka 16 ayaan ku soo gabagabeeyay. I hope inaad wax un ka fahantay. marka muuqaalka share garay, muuqaalka like sar si ardayda form 2-ga ay u gaaraan. Now casharkani waa form 2, marka uu share garay ardayda form 2-ga. aad baa u mahadsantiin.